kulanti wacan wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamij wareedkeenan gaarka ah anakan saddexaad qodobada aad ku daawan doontaan waxa ugu waaweyn Somaliland oo xabsiga dhigtay sarkaal la sheegay in dawladda federaalka ee Soomaaliya muddooyinkii ugu dambeeyay uu ka dhuumanayay sarkaalkan waxay ku sheegeen Somaliland jaadus haddaba taliyihii gorgor hadda halkee lagu hayaa xogtii ugu dambeysay macluumaad xasaasi sidoo kale waxa daawan doontaan amar uu bixiyay Ciro iyo talaabo dhanka kale uu qaadaya firdhiye macluumaadka ugu dambeeyay gurmad xoogan oo dhinacyada qaar ay heleen iyo sarkaalkan gacanta lagu dhigay ama taliyihii gorgor ee hadda gacanta ay Somaliland ku hayso talaabada ay ka qaadayso macluumaad ku saabsan ayaan wararkii ugu dambeeyay ku soo koobeynaa balse inta aanan faahfaahinta guda gelin waxaan ka dalbanaynaa in muuqaalkan aad noo share gareyso like saarto sidoo kalena qaybta hoose fikirkaaga ama aragtidaada aad noogu reebto سلامي ركوم برتين رئيس TV si aad uga hesho wararka iyo macluumaadka halkan aynu soo gelino adiga oo furanaya gambalelka digniinta si ay ku soo gaaraan macluumaadka iyo xogaha aynu kula wadaagayno waa hagaag aynu ku horeeyno waxa ciidanka Somaliland ay wajaale ka qabteen mid kamid ah taliyaashii ciidanka xooga dalka gaar ahaan taliyihii ciidanka gorgor waxaana guutada 18aad ee gorgor taliyihii hogaaminaya Xasan Ciraaqi uu ku jira hadda gacanta ciidanka Somaliland iyadoo oo talaabo culus oo degdeg ay ka qaadayaan sida ay sheegeen Somaliland hadda walow ay jiraan saraakiil kale oo dhanka Ethiopia oo ku baxay arintan si loo dhaxdhaxaadiyo ninkan xabsiga looga soo daayo balse wararka aynu helayna hadda ee la xaqiijiyay waxay sheegayaan in Somaliland ay ku adkaysatay inay xabsiga ku sii hayso Xasan Ciraaqi kadibna maalmaha ama saacadaha soo aadan ay maxkamad geedo toogasho degdegana lagu fuliyo waxay sheegeen in deegaanada Somaliland uu ku yimid sifa sharci darro ah wajaalana lagu qabtay ninkan balse sheekada la xiriirta qabashada ninkan ayaa waxa ay muujinaysaa inay tahay mid xoga sirdoon oo ciidanka Somaliland ee heeganka ku jira muddooyinka ugu dambeeyay heleen in ninkan lagu soo qabtay dhaqdhaqaaqyo ciidan ayaana durban laga dareemaya goobaha qaarkood iyaga oo ay qaadeen talaabooyinkii ugu dambeeyay ee dhaqdhaqaaq ciidan ee ku wajahan dhinaca markaasi dhaqaaqyada iyo talaabooyinka ay qaadayaan ciidanka Somaliland tiro dhowr jeer ay soo laabteen arrimahan la xiriira qabashada saraakiisha iyo xubnaha jaajuuska ay ku tilmaameen markaasi sirdoonka ahaa ee ka socday dhinaca marka ciidamada dawladda ee lagu arkay aaga wajaale iyo goobo kale Somaliland ayaa ku tilmaamtay tani inay tahay talaabadii ugu weyneed ay kaga hortagtay iyada oo waliba ninkan uu shaqo culus ka waday wajaale sida ay sheegeen dhinaca Ethiopia ayuu ka yimid waxaana uu markaasi maalmihii la soo dhaafay Xasan Ciraaqi ku sugnaa dalka Kenya halkaasi oo Nairobi uu kaga sugnaa si gaar ah waxaana markii laga qaaday xilkii taliyaha ciidanka gorgor oo muddo uu hayay ninkan ama guutadii uu taliyaha u ahaa waxa uu u cararay ama iska aaday dalka Kenya halkaas oo ku sugnaa ugu dambeynse waxa uu uga sii talaabay dhanka iyo Ethiopia oo maalmihii la soo dhaafay ku sugnaa balse waxa la sheegay in uu u gudbay dhanka xadka halkaasi oo wajaale isagoo ku sugan ay marka ciidamada Somaliland gacanta ku dhigeen kadib markii ay heleen xog iyo macluumaad sugan oo la xiriirta ninkan gaadiidka u saarnaa inuu ka soo degay ay muujinayaan cadeemaha la helay oo taagnaa meel bannaan ah oo ay markaasi ka agdhaweed mid kamid ah shirkadaha isgaarsiinta ama bangiyada ku yaala wajaale halkaasi oo ninkan adeeg markaa uu u taagnaa ama in uu markaa ka sarrifto markaa ama ka qaato qarashaad uu u taagnaa si uu markaasi bangi ku yaala wajaale uu uga sameeyo in uu lacag ugu jirto akoonkiisa gaarka uu kala baxo iyo talaabooyin ay qaadeen ciidanka Somaliland oo degdeg ah ayaa kulmay iyada oo waliba ninkan uu durbo u gacan galay ciidamadii Somaliland ee sirdoonka ahaa ee ku sugnaa goobtaasi waxa la sheegay in uu la socday nin kale oo ku wehelinayay safarkiisa ama socdaalkiisa dhanka dhulka ee wajaale taliyihii guutada 18aad ee gorgor horeyna u hogaaminaya dagaalkii Raskamboni ee dawladda Axmed Madoobe ay ku qaaday ayaa waxa hadda uu markaas u gacan galo oo ku jira gacanta ciidanka Somaliland walow aan la ogeyn go'aanka ay ka gaarayaan iyo sida loo maareynayo haddana waxa durba soo baxaya amara culus oo la dul dhigay ninkan iyada oo ay socdaan dhaqdhaqaaqyo waaweyn iyo talaabooyin muujinaya in Somaliland ay si adag markan u qaadayso
tallaabo culus. Xasan Ciraaqi ayaana hadda ku jira gacanta ciidanka Somaliland. dhaqdhaqaaqyo iyo tallaabooyin durba degdega ayaana soo baxay, waxaana ay markaasi hadda u muuqataa in ay ciidanka Somaliland dhankoodu qaadi karaan qorshayaashii ugu dambeeyay iyo dhaqdhaqaaqyadii ugu dambeeyay oo arrintan ay markaa u qaadayaan. dhowr tallaabo oo ay maalmihii lasoo dhaafay ciidamadu qaadeen ayaa suurto geliyay in gacanta lagu soo dhigo xubno la sheegay in ay aad u baadigoobayeen oo ay raadinayeen. waxaana ka mid ahaa Xasan Ciraaqi, taliyihii ciidanka Gorgor ama guuta ka tirsan Gorgor oo hadda gacanta ciidanka Somaliland ku jira, maxkamadna ay sheegay inay horgeynayaan. walow ay jirto in Ethiopia dhankeedu ay wada hadal iyo durba saraakiil sirdoona ay u soo direen dhanka Hargeysa, halkaasina ay kulamo ku leeyihiin saraakiisha uga sareysa sirdoonka Somaliland. haddii ay dhacdo in ninkan la sii daayana waxa ay noqon doontaa mid mar kale culeysaadka saaran dhinaca Somaliland sii xoojin karta, iyada oo dhaqdhaqaaqyo durba ay ka bilowdeen goobaha qaarkood. wararka hadda aynu helayna ayaana muujinaya in Somaliland ay ku adkeysanayaan xilligan inay xabsiga ku sii hayaan Xasan Ciraaqi oo aysan gacantooda aysan ka bixin, tiirka toogashadana ay geeyaan si ay markaasi xanuunka u dareensiyaan dawladda dhexe. wararka qaarkood oo aan la xaqiijin karna waxay sheegayaan in durba ay suurtagal tahay in ninkan xabsiga laga sii daayo oo Ethiopia ay ku lug yeelato arrinkan sideysmada ninkan oo muddo dheer ay Somaliland baadi goob xoogan ugu jireen ama ay raadinayeen. dhaqdhaqaaqyo hubeysan ayaana durba ka bilowday aagga Wajaale, halkaasi oo ninkan dad ehelkiisa ah ama xigta dhowla ah ay durba ka bilaabeen. dhaqdhaqaaqyada hubeysan ayaana sidoo kale muujinaya inay yihiin kuwii ugu weynaa saacadihii lasoo dhaafay tallaabooyinkooda qaadayay. qorshayaal culus ayayna durba halkaasi ka bilaabeen, waana midda soo dedejisay xilligan in dhaqdhaqaaqan uu markaa sare usii qaado. ciidanka Somaliland waxaa durba la siiyay dhinaca kale amar culus oo ay bixiyeen saraakiisha ciidamada, waxaana amarkan marka hore uu ka yimid madaxweynaha Somaliland Cabdiraxmaan Ciro oo bixiyay amarkii ugu dambeeyay ee la siinayo ciidamada Somaliland. dhaqdhaqaaq culus ayayna durba bilaabeen iyo tallaabooyin military oo degdega, waxaana tallaabooyinkani ay imaanayaan xilli xasarada siyaasadeed iyo buuqa taagan ay sare markaasi usii qaadeen. dhinacyada qaarkood ayaana muujinaya xilligan dhaqdhaqaaqii ugu weynaa iyo tallaabooyinkii ugu cuslaa ee la qaado, iyada oo Xasan Ciraaqi uu ku jiro gacanta ciidanka Somaliland. waxaana Somaliland ay sare u qaadeen sirdoonkooda ka howlgalaya aagga Wajaale iyo goobaha kale si ay ula socdaan dhaqdhaqaaqa ciidan ee halkaasi ka imaan kara iyo tallaabooyinka ehelada qaar ee markaa Xasan Ciraaqi ay qaadi karaan. dhinaca kale Firdhiye ayaa bixiyay markan dhankiisa tallaabo culus iyo go'aan degdeg ah oo ay qaadanayaan ciidamada Firdhiye markaasi ama si gaar ah ay sii qaato Waqooyi Bari, waxaana ciidankiisa uu faray inay qaadaan tallaabooyin degdeg ah oo ay kaga hortagayaan qorshaha Cabdiraxmaan Ciro ee duulaanka ay ugu yihiin SSC qaatumo deegaanadeeda. Ceerigaabo oo hadda ay gacanta ku hayaan inteeda badan ciidamada Somaliland duleedkeedana ay ku sugan yihiin SSC qaatumo ayaa ah meesha ugu adag ee xilligan la isku hayo, waxaana sidoo kale wararku ay sheegayaan in Somaliland ay dagaal culus ka bilaabayaan markan aagga dhanka Og, halkaasi oo ah saldhigga ugu weyn ee dhaqdhaqaaqyada muddooyinkii ugu dambeeyay iyo tallaabooyinkii ciidanba ay ka socdeen. Firdhiye ayaana bixiyay dhankiisa amarkii ugu dambeeyay iyo tallaabooyin culus oo ay qaadayaan ciidamada SSC qaatumo, walow aan la ogeyn qorshaha iyo sida markaasi halka ay ku dambeyn doonaan tallaabooyinka ninkan uu bixiyay amarkeeda in la qaado. qorshaha socda ayaana ah midkii ugu dambeeyay ee dhaqdhaqaaq ciidan ay u sameynayaan ciidamada SSC qaatumo. gacanta Somalilandna waxaa durba galay mid ka mid ah saraakiisha ugu cadcada dawladda Soomaaliya ee Wajaale la sheegay in arrimo gaar ah u tagay, balse ciidamada Somaliland ee sirdoonku ay ogaadeen kadibna ay gacanta ku dhigeen ninkaana xabsiga ay u dhaadhiciyeen. haddana waxa uu ku xiran yahay xabsi ku yaala gudaha magaalada Hargeysa, halkaasi oo ninkan uu ku sugan yahay. waxaana suurtagal ah in saacadaha soo aadan tallaabooyin kale oo degdeg ah ay qaadaan ciidamada Somaliland. sirdoonka ayaana sare loo qaaday si dhaqdhaqaaqa ay markaasi ula socdaan. ogeysiis muhiim ah, isbitaalka Samaker waxa uu bilaabay 6 bishii Julaay oo daaweyn iyo qaliimo ay fulinayaan khubaro u dhalatay dalka Suudaan, kuwaasi oo kala ah Dr. Osama Gasmal Said oo qabiir ku ah cudurrada haweenka iyo taranka IVF, iyo Dr. Maxamed Cabdilxamiid oo ku takhasusay qaliimada guud iyo bogsakarowga. la kulanka dhaqaatiirtu waa lacag la'aan, qiimaha qaliimada waxaa la dhimay 50%, waxa ayna socon doonaan muddo 45 cisho ah. ee horay u gaar Samaker oo ku yaala Kaasa Balbalaare ka soo horjeedka saldhigga Hodan.
sidoo kale war laga helay dhinaca SSC Khaatumo hadda kasoo baxay waxay sheegayaan in durba la faray ciidamadii Somaliland ee markaasi maxaabiista qabsaday ee dhaqaaqa ciidanna sameeyay in laga hortago oo ay si gaar ah markaasi ugu dhaqaaqaan goobaha hore ee dagaalka iyadoo oo waliba sameynaya ujeedooyin iyo rogaal celin dagaal oo degdeg ah. ciidamada qaar waxaa la arkayay iyaga oo shacabkii iyo sidoo kale dadkii deegaanka ay dhinac socdaan dhiirigelinana ay u sameynayaan, waana mid soo dedejiyay xilligani in tallaabadani si degdeg ah ay markaasi u qaadaan. waxaa sidoo kale ay hadda u muuqataa in dhinaca SSC Khaatumo ay jawaab culus ka bixin doonaan tallaabadan dagaal iyo dhaqaaqan ciidan oo ay hadda ka socda goobaha qaar ee maxaabiista iyo ciidanka loogaga qabsaday, walow ay markaa hadda ay si gaar ah u socdaan dhaqdhaqaaqyo iyo kuwo kale oo tallaabooyin ciidan ah oo ay hadda markaasi u socdaan dhaqdhaqaaqii ugu dambeeyay ee ay ku doonayaan in ay goobahaasi qaarkood ay ku gaaraan. maxaabiista marka laga tago iyo dhaqaaqa ciidan ee ka socda meelaha qaarkood waxaa wararku ay sheegayaan in Somaliland dhankeedu amarkan culus ee la bixiyay ee lagu bartilmaameysanayo goobaha qaarkoodna loogu dhaqaaqay inay ahaayeen kuwo si degdeg ah markaasi loogu dhaqaaqayay. waxaana arrimaha qaar sidoo kale hadda dib ugu soo laabtay goobihii markaasi dhaqdhaqaaqyadu ay ka socdeen ciidamadii ugu badnaa ee dhinaca ka socday maamulka SSC Khaatumo, halka Somaliland dhankeeduna ay markaasi u qaadeen tallaabooyin aad u culus oo ciidan iyo dhaqdhaqaaqyo military oo degdeg ah oo ay kaga hortagayaan qorshaha dagaalka iyo dhaqdhaqaaqa ciidanka. waana dhowr arrimood oo si degdeg ah loo qaaday. tallaabadan ayaana sidoo kale hadda ka dhigan inay tahay tii ugu dambeysay ee ciidamadani ay qaadayaan. waxaa sidoo kale Somaliland dhankeedu hadda wararka imaanaya ay sheegayaan in ay ciidamadu u qaadayaan dhaqdhaqaaqyadani tallaabooyin iyo amaro culus oo la siiyey oo ay hadda u muuqataba in ay si degdeg ah ugu gudagelayaan tallaabooyinka military ee dhaqaaqa ciidanka loogu sameynayo. saraakiil ciidan oo kamid ah kuwa ugu sareeya ama ugu saameynta badan dhinaca Somaliland ayaa lagu arkay goobaha dagaalka iyaga oo ku biiray, waxaana ay hadda yihiin kuwa dhiirigelinta degdega sameynaya, dhiig joojintana u sameeyay ciidamadii furmaha dagaalka ku sugnaa ee markii hore ku jabay dagaalo dhacay. Somaliland ayaana mar kale hogaanka ciidankan waxay ku wareejisay saraakiil firfircoon oo la sheegay inuu kamid yahay wiil uu dhalay madaxweynihii hore ee Somaliland Muuse Biixi oo hadda hogaaminaya dagaalka. sidoo kale Mahad Cambaashe ayaa dhankiisa dhiiraday oo dagaalkani u dhaqaaqay isaga oo qorshihii ugu dambeeyay ee dhaqaaq ama dagaal xilligani uu socdo. tallaabooyinka qaarkood ayaana hadda muujinaya dhaqdhaqaaq ciidan iyo qorshe dagaal oo ay si gaar ah ugu wajahayaan goobaha dagaalka, waxaana ay markaas u muuqataa hadda dhaqdhaqaaqyadu inay yihiin kuwo aad markaas ku soo taraya. waxaana Somaliland hadda ay u dhaqaaqeen sidii ay u xakameyn lahaayeen hubka saadka ciidan iyo dhaqdhaqaaqa ka socda deegaanadooda qaarkood oo ay ku doonayaan inay kaga hortagaan qorshaha dhinaca Somalilandna waxa ay yihiin hadda kuwa is soo taraya oo marka ka dambeysa ay markaasi dhaqdhaqaaqyadu gaareen tijaabadii ugu dambeysay ee la marsiiyo hubkan iyo saadkan ciidan ee gudbay iyo goobaha dagaalka ee markaasi ciidamadu ay ka sameeyeen dhaqdhaqaaqa ciidan. waa kuwo muddooyinka ugu dambeeyay la filayay inay dhici karaan, waana qorshayaal si adag ee dhinaca Ciro markaasi uu ugu dhiiraday inuu u qaado tallaabooyinka military sida degdega ah uu ugu tijaabiyay in ay arrimahan dagaalka la xiriira ay markaasi ugu gudagalaan, iyada oo la arkayay qaar kamid ah gaadiidkii dagaalka SSC Khaatumo oo u gacan galay dhinaca Somaliland. xubno kamid ah maxaabiis horle ayayna gacanta ku dhigeen ciidamada Somaliland oo ay markaasi dhaqdhaqaaqa ciidan ay wadaan ay kaliftay ama sababtay in si degdeg ah ay goobaha dagaalka qaarkood ku gaaraan, goobaha qaarna markaasi ay gacanta Somaliland galaan, iyada oo waliba fariisimo waaweyn oo muhiim ahaa gacanta looga dhigay lana la wareegay goobaha markaasi fariisimahan u ahaa ciidanka Somaliland. waxaa kamid ahaa dhowr meelood oo kala duwan oo la sheegay dhowrkii maalin ee ugu dambeeyaba in ay ciidamadu qorsheynayeen inay weeraraan ama ay fariisimaha si gaaraan. waxaa si gaar ah uga mid ahaa goobaha loo qorsheynayay in
weeraradan lagu qaado saldhigga ugu weynaa ama fariisinka ugu weynaa SSC Khaatumo ee duleedka Cerigabo oo ah mid ka hadda ciidamadu ay la wareegeen dhaqdhaqaaqyo hubeysanna weli ay ka socdaan oo lagu doonayo in tallaabooyinkani ay gaaraan sidoo kalena ay socdaan dhaqdhaqaaqyo ciidan oo ay ciidamada Somaliland dhankoodu ay wadaan sidoo kalena waxaa socda dhinacyo kale oo tallaabooyin ciidan oo xoogan wada sidoo ay hadda soo xiganayaan qaar kamid ah saraakiisha ciidanka Somaliland markaasi muujinaya in ay gacanta ku dhigeen ciidamo badan oo SSC Khaatumo garabkeeda ah kuwa oo saacadihii ugu dambeeyay dhaqdhaqaaqyada ciidan ee saameynayay xilligani ay ahaayeen kuwa soo tariyay waxa wararka qaarkood ee hadda soo baxayaba ay muujinayaan in ciidanka Somaliland tallaabo culus oo dagaal oo degdeg ay qaadeen taana ay kaliftay ama keentay in xilligani si adag oo ama culusba ay uga jawaabaan fariimaha ka imaanaya ciidamada waxaana ay u muuqataa xilligani in dhaqdhaqaaqani uu yahay kii ugu weynaa ee lagu doonayo in sidoo kale tallaabooyin ciidan oo degdeg ah ay u qaadaan dhinaca Somaliland ciidamada SSC Khaatumo oo hadda ay doonayaanba in ay ugu guda galaan dhaqdhaqaaqii military ee ugu weynaana xilligan waxay ka socdaan qaar kamid ah goobaha dagaalka ay isku horfadhiyaan dhinacyadani iyadoo oo waliba dagaal la isku adeegsaday hubka culus iyo sidoo kale hubka noocyadooda fudud ka dhacay goobo ay muddooyinkii ugu dambeeyay shaqooyinku ka taagnaayeen si gaarna goobahaasi waxay ahaayeen meelaha la soo warinayay in ay markaasi tallaabooyinkani u dhaqaaqi karaan dhinaca SSC Khaatumo waxaa markaasi hadda socda waan iyo dhexdhexaadin la doonayay in goobo kale oo dagaalku uu gaari karo ama ku fidi karo markaasi laga sii hortago balse iyada oo ay socdaan dhaqdhaqaaqyadaasi haddana waxaa soo baxaya warar sheegaya in Somaliland aysan marnaba aqbali doonin inay sii joojiyaan dagaalkan ama ay hakad geliyaan iyada oo dhaqdhaqaaqii ugu dambeeyay ee hubeysnaa ay xilligan ka hortagayaan tallaabooyinka iyo dhaqdhaqaaqyada ciidan ee xilligan ka socda meelaha qaarkood waxaana hadda ay u muuqdaan kuwa tallaabooyinka dagaalka iyo dhaqdhaqaaqa ciidankaba sii xoojinaya xubnaha sida weyn uga aragtida duwan ee diidan xilligan dhinaca iyo SSC Khaatumo oo si weyn markaasi ay isku hayaan labada dhinac.